qurumaha dunida jira yagoo kala qaaraday haddana qaateen midnimo dabeed qani bay noqdeen dhulkoodana lagu qulqulo Somalo isku qoysa waxaan weli socdaa barnaamijkeennii kaale ilaaro dhulkii hooyo oo la dalxiis nolosha tahsoon waxaan maanta ku sugannahay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool si aan u ogaano taariikhda ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool aan u xusno taariikh la hilmaamay waxaan maanta barnaamijkeena marti ku ah oo nagu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood runtii qoraasare oo aad wad garanaysaan wariye ka soo shaqeyn jiray laamaha kala duwanaaye warbaahinta Soomaaliyeed Ismaan Cabdinuur Xaashi anigu aan u aqaan aftahanka Soomaalida ku soo dhaw Ismaan Cabdinuur aad iyo aad baad maasantay oo ku faraxsanaad inaad fiilka soo gashid aad baa inta badan anigu waxaan doobaynaa dalxiiska iyo taariikhda la hilmaamay inaan dib u soo xasuusano runtii waxaan toos u bilaabi doonaa barnaamijkeena Ismaan maxaad nagu sheegi kartaa adigoo soo koobaya magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool taariikhdeeda taariikhda ugu mudan Soomaali bay leeyihiin oo halgankii daraawiishta markii sayidku carabta ka soo noqday sayid maxamed cabdullaahi xasan ee berbera ka soo degay waxyaabihii la kulmay waxaa ka mid ah carruurtii dhallinyarada ahayd ee derbi jiifka ahayd iyo masaakiintii oo la gaalaysiiyey oo magacyadii laga wada bedelay majacaseeye iyo dhaymoole laba xero loo sameeyey macatabkii ama saliibkii ama crosskii loo xidhay kii warsame loo odhan jiray William loo bixiyey kii jaamac loo odhan jiray John loo bedelay arrimuhu ka giigishay bay ka mid ahayd sayidku dabeetana waa ka berbera ka bilaabayaa halganka iyo masaajidada inuu khudbada ka jeediyo markii dambe ingiriiska daba inuu xidho niman Soomaali ay haddaan maanta la qaban meel fog baa laga doonayaa dabeetana burco yimid oo soo lugeeyey burco ka yimidna meeshii ugu horreysay uu dego waxay Qoryaale oo uu ka bilaabay xarun la isugu yimaado oo dadka uu ku waayigeliyo beelihii buu dhex galay rag badan baa u yimid ciidan buu urursaday ilaa hub bay qaateen markaa waxaa dhacday niman ingiriiska u shaqaynaya oo laba qorisita inuu yidhi oo loo soo diray isaga soo basaataan war ku soo biira halganka oo hubka naga iibiya mid oo askarta gaaladiina u caayay aakhirana naar baad tegaysaan adduunkana dulliga dadkiina aad ka qayb gelaysaan haddii cidna saa yeelin mid baa ogolaaday markaa dabeedna dhowr qaalmood oo geelo qorigii ka siistay kadibna ingiriiskii baa maqlay ninkii inuu hub urursanayo oo dad badan baa taageeray beelaha markaa habar jalo iyo habar yoons baad bay u taageereen waliba suldaan diiriya raggii taageeray buu ka mid ahaa suldaanka habar yoons dabeetana aakhirkii adigu raabtigii buu aaday hawdkuu degay dilkii garaar cali baa ku xigay daraawiishta ka hor yimid macnaha intaana xoog yeelanba marka halganka saa u soo bilaabmay ee daraawiishtu wuxuu soconayay dhowr iyo 20 sannadood xaruntii ugu horreysayna eyl bay ahayd gobolka Nugaal xaruntii labaadna Talax bay ahayd oo la degay 1910kii marka markii daraawiishtu ay guud ahaan way ku guulaystay goob kastana iyada libta qaadanaysay hal meel kaliya lagu jabiyey jid baa la oran jiray jid baa nin Soomaali oo waliba deegaanka u dhashay baa naqshada keenay oo ingiriiska siiyey la oran jiray awka jabane oo ingiriisku chief caaqil sare ka dhigtay waa inuu baqa been laynayna buli intaanu soo xabada ku soo ridno baan soo cararnaa dabeedna gidhigaankii markaa madfac weyn ha ayaynu saasay ku laynayna maantaasay jabeen oo dhowr kun oo qof halkaa ku shahiiday baa la sheegaa waliba waxaa la sheegay in habeenkii meydkoodii uu ifayey dabeetana ay yaabeen nimankii ingiriiska la shaqeynaya oo ay tageenba mise meydkii daraawiishuna oo wada ifaya waa nuuraya dabka baxayana waa iyaga kii kale ka dhintay Soomaalidii ka dhimatay ingiriiskina waa dixribaaba galay waa ka dabeetana ingiriiski baa loo sheegay ninkii baa meeshii tagay dabeetana wuxuu yidhi mar dambe qof kale ha u sheegina diidaya in la arko mucjisadan dabeetana nin la oran jiray Xaaji Muuse Igere oo la taliyaasha waaweyn ee ingiriiska ka mid ahaa waa habeenka uu goostay inuu ka tago ingiriiska oo yidhi kuwan daraawiishtu adduunkiina naga adkaaday aakhirana nooga dheereeya halkankaasaa markii uu sayidku markii dee Soomaalidu jabisay ee diyaaradaha lagu duqeeyay haddaan Soomaali la socon oo wadada tusayn oo tilmaamayn oo awrta u keenayn mabay guulaysan kareen ciidamadana waxaa ingiriis faransiis talyaani
Kenyaan wixii Indian wixii Ingiriis gumaysan jiray oo dhan waxa la oran karaa adduunka oo dhan baa isugu tagay sidan Mareykanku markuu meel weerarayo uu urursado maanta gaashaan buuraha badan u ka haysto ayaa la soo kaxaysta marka dadkii markii sayidkii tagay talaaxna lagu kala yaacay la duqeeyay la bilaqaystay ilaa caruurtii la qaatay ayaa ay degeen dadku markii ugu horeysay magaalada Laascaanood ceelka durdurka laba magac buu leeyahay markii hore waxa la oran jiray Dextano markii dambena waxa loo bixiyay Laascaanood waa laaskii markay xooluhu ka cabaan caanaha badan daradayeen ayaa loogu magacdaray durdurkana waa soo arki doontaan haddii la haydmo oo biyuhu u socdaan oo il buu leeyahay aan goyn marka hareerihiisaa la degay biyaha daraadood baa loo degay 1911 baa la sheegay markii ugu horeysay ay degeen laakiin ma inta dhaqaalaha haystaa barbaray wax yar ka soo qaadi jireen oo timir yar iyo sonkor iyo makiinado iyo waxaasaa lagu iibin jiray kabarayaal bay helaan kams marka halkaasay ka soo biyagaleelantay magaaladu durdurka halka hooyiskaasan yaa ama abiiskaasan waxay ahayd gobolka Sool waa magaalada Talax khudbada dhaadheer oo daaraha la leeg ayaa ka dhisan ilaa 6 khudbad baa taagan qaar culimada yihiin labana hooyadii Carraseed Magan iyo aabihii Cabdullaah Xasan ay yihiin Cabdullaah Xasan laftiisa ku dhashay halkan iyagoori agteeda dooxada Asuura ma sayidka kaliya awoogi baa yimid maxaa imika taariikhda inta la eegay facaweyn maxaa imika laga hayaa Laascaanood isbedel baa ku dhacay Soomaaliya oo dhan 147 sanadood Soomaalidu tala ay leedahay kuma dhaqmeen 67 sanadood baa haystay Ingiriisku 1848 shirkii Berlin kadib baa la qabsaday meelaha waqooyiga marka laga reebo beeshan Sool waxay la galeen heshiis Ingiriiska nin reer buu hoodlaa oo la diiriyay magan baa turjubaan u ahaa Ingiriiska marba tilib buu heshiista galaya marba tilib amaryonis ama idagale ama abarjalo ama habarawal ama ursageli ama gadabuursi ama ciise qolo walba marba heshiista galay ninka dhul baadana turjubaan u ahaa diiriyay magan laakiin qolahan waxay ahaayeen daraawiishti dabeedna waxa lagu soo rogay markii sayidkina iimi ku dhintay dad daraawiishtina kala yaacday cudurro iyo dhibaatooyin badan ay ku dhacay mar walba inay iyagu dib isu soo abaabulaan buu ka baqayay marka wuxuu saaray waxa la xukun degdeg ah emergency law oo ah meesha lagu arko in lagu toogto waxa la wuxuu dhaana waxa loo siiyay sameeyay day iyagi 1941 horta intaan halka gaarin daraawiishtu waxay astaamay warkay isugu gudbiso xagga dabka iyo buuraha buurta ka shaqeysa Caynaba Kirid halkaas xarun ahayd halkaas haddii ciidan Ingiriis soo baxo kale dab laga shidi jiray dabeedna kamar ogaadeen meelada Caynaba dusheeda baa dab labaad ay ka shidi jireen daraawiishtu joogta dabeedna dabkaas u muuqanaya Laascaanood buurta sayidka ee farduhu fuuli jireen hadda arki doontaan ee durdurka dhinaysa ayaa dabkaasna laga shidayaa halkii farduhu degnaay goobta maxaa la yiraahdaa sayidka loo yiraahdo buurta sayidka la yiraahdo dabeedna waa laga shidayaa dabka daryare oo dhowr iyo 20 kilomitir ka jira kadib geeda midhale u dhow Borawada dabka kala talaxba marka arkaysa faras baa markaa soo orday halkana faras baa ka tagaya xogtii isgaarsiintu soo asaxay communication-kooda dab buu ahaa gaadiidkooda fardaha labada qodob baa wuxuu ahaa siday fariimaha isku diri jireen dabka iyo fardaha marka 1941 markii Ingiriisku ogaaday inaanay jirin dad soo imanaya iyo daraawiish dib soo abaabulaysa oo Burhaan Sheekh Bashiir lagu dilay dadkii halka ninkii waligii Ilaahay doonay inuu dib u abaabulo waxa dhacday ninkii dilay uu go'ay baa la yidhi ifku ku go'ay waxa dhacday markaa inuu degmaan siinaya district soo doorta dabeetana waxay isku qabteen dhowr meelood marka Caynaba deganaa dadkani buu hooday deganaa waxay xudun oo Laascaanood ka degaan horeysay iyo Woodward oo Laascaanood ka degaan horeysay labaduba la deganaa inta Laascaanood la degin ayaa qolo walba tiri xudun ha laga dhigo qolo waxa tiri Woodward ha laga dhigo qolo waxa tiri Caynaba ha laga dhigo laakiin si Garataan baa Laascaanood ha laga dhigo Garataan waxa tiri marka reer buu hooday dadka maanta degan baa Caynaba u badnaa labadii oo markaa isku reer ahaa oo Ingiriiska wax ka laayo oo la xiray baa jiray galoos iyo afgaab loo dhigay dabeetana garaadku uu ka yabaalay inay nimankaas xumeeyaan dabeetana wuxuu Laascaanood laga dhigo garaadkii kale la tashaday nugaasha dabeetana wuxuu yidhi aduu ceergaabaad haysataa oo degmaha Laascaanood laga dhigo labadii garaad baa isku raacay hal nin kaliya ay dhacayna baa laga dhigo warsamaha loobsiyaa loo jiray haddii dadkan dantiisa markaa la eegayna taasaa ugu saxsanayd oo ay dhagaankooda kama soo barakaceen
haddii ay markaa caynaba laga dhigo karaa ganacsiga burcaan iyaga haystay markaa oo ugu badnaa dabeetana laascaanood baa laga dhigay degmadii 41 ha yeeshee daraawiishtii markaynu ka soo bilowno 21 la degay durdurka magaaladu way soo degal rogotay meel dhexe xaafad hadeerto caano ma dareemin loo yaqaano oo asku shaadhaxa waxay leedahay dimcaday lahayd dimcaday yar oo halkaas markii labaad magaaladu u soo guurtay oo baamsharigeedii soo yar hagaagay 1937 ayaa odayaashu sida ay sheegeen daartii ugu horeysay laga dhisay laascaanoodan maanta waa 1937 ha 1937 baa la degay daara badan baa la dhisay dadkii dalwee daraawishta kala yaacay baa dib u soo noqday magaalay noqotay 41 saasaa laga dhigay degmada ay noqotay 1942 baa la siiyey degmada markaasaa la bilaabayaa 46 1946 45 iskuulkii ugu horreeyay baa laga furay laakiin geedaha hoostooda wax ku dhigan jireen waxaa ka mid ah garaadaqani garaajama allah yarxam raggii lagu bilaabay 45 oo garaadada iyo cuqaasha waxaa la yidhi kaana carruurtiina si dadka kale soomaalida waxay leedahay waa nala gaalaysiinayaa iskuulka u dhiiban mayno gaalada carruurtayada cuqaasha iyo garaadada baa la khasab ku keena ciidamadiina si la idinku daydo markii dukaamada haystay leysanada laana waxaa la yidhi leysanka ganacsigaa idinka qaadayaa haddaydan carruurtiina keenin sheef baa ka mid ahaa ninkii bangiyada haysan jiray lodka garaadaqani professor abiyan baa ka mid ahaa 45 iskuulkii ugu horreeyay halkaa laga bilaabo 46 isagoo daaraa baa la dhisay isagana si buuraag lama dumin waad arki doontaa waa dhisan yahay laascaanood dhibaata ku dhacday taariikhdeedii waxaa baabiyey niman dhalinyaro wadaada oo itixaadeedo oo dumiyey 9 hay-adood base jaamicii magaalada oo berbera naqshada laga soo qaaday turkiga oo qadiim ahaa oo sanado fara badan jiri lahaa oo taariikh ahaa oo kutub badan oo arkiifi ay taallay way burburiyeen mid laba dabaq ay ka dhiseen magaalada waxay burburiyeen meeshii tiyaatarkii bay burburiyeen xafiiskii laga maamulayay library-ga magaalada ahaa ee BBC laga dhageysan jiray ilaa ingiriiska dhistaa bay burburiyeen tii dhalinyarada ay burburiyeen boostii bay burburiyeen oo lacagahana la isugu soo diri jiray bangiga ahayd iyo dokumentiya maxkamadii bay burburiyeen waxay burburiyeen tii ganacsigay burburiyeen tii haweenkay burburiyeen 9 hay-adood bay burburiyeen iyo Mr. Jaamaci document dawladda hoos oo kale ka badbaaday documentigeeda bay dab sureen dadkuna aad uma oga markaanu ku doodnay jaamacad baa laga dhisayaa xilligii daahir reality leebaydo odayaashii oo dhan gudaha la dhigo waa la xidhay ismaanow haddii ma la odhan karaa haddii taariikhda faca weyn ay iminkaad ka soo sheegtay goobihii lagu talagalay ay baaba'een ama la burburiyey in jiilasha dambe taariikhdooda la lumiyey oo sida ay tahay weeye waxaa kaloo imika meeshii lagu aasaasay USB baa xisbi la odhan jiray United Somali Party xisbiga madinada Soomaalida waxaa ku midaysnaa beelaha waqooyi degan oo dhan marka laga reebo beesha dhexe marka la reer shaqo ma ku jirin inta kale gobolka awdal degan ciise iyo gadbis warsangeli iyo dhulbaante laascaanood baa la isugu yimid gosha waa arki doontaan cusbada ka dhinaysaa baa waa 2000 waa 2000 oo qof baa isugu yimid waa 1959 October shirku wuxuu furmay 13 October maalin talaada aniga ku qalin jabiyay jaamacadda la foolay marka ka baxayay aasaaska USP iyo doorkii ay ku lahayd xorriyadda iyo midnimada ninba dayr ku xirtay baa leeyahay markaan tirnaa bal booqdo noobiyad baa ka dhisnay xilligii Ingiriiska la dhisay 59 waa la burburiyay waxa kaloo taariikh ay Cabdirashiid Cali Sharmaar ka madaxweynihii Soomaaliya nin reerkooda isku beel yihiin baa dilay oo ciidanka daraawiishta ama field force loo jiray Burco ka tirsanaa laascaanood iyo ergaabana Burco markaa laga xukumayay waxaa loo jiray waqooyi bari caasimadooda Burco ahayd ergaabo iyo laascaanood laba degme ahaa meesha Hargeysa iyo Berbera iyo Boorama oo israacsan Hargeysa caasimada ahayd waqooyi galbeed baa loo jiray Boorama iyo Arraxsana Berbera ismar si ugu dambeyntii guntii gunaanadkii barnaamijka ku jirnaa sida aan waaba la dumiyay baan kula meeshii lagu dilay madaxweynaha 60 Cabdirashiid Sharmaarka burburka waxyaabaha la dumiyay ka mid yahay nimanka dhalinyarada wadada loo haysto inay taariikhda magaalada raacsan waa qof inta laga gooyay muxuu markaa ma la garan karaa dadkuna kuma baraarugsana gaar ahaan dhalinyaradu lama socoto ma la oga odayaashii ka hadlayna waa la xidhnaa haddii taariikhda intaa la ege aan ka soo sheekeynay aad moodo iminka sida hadalkaagaan ka dareemayno inuu si baabi'i doono oo jiilasha dambe fahamkooda ay yaraa doonto sidee dib lagu soo celin karaa arrimahan iminkaad ka soo sheekayso loo ilaalin karaa taariikhda gobolkan dadka badan ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in taariikhdooda ay gacanta ku hayaan dalka isaga taariikhdiisa ilaashada dhaqankiisa afkiisa iyo deegaankiisa see loo ilaalin karaa imika way dhacday laakiin sidee
taxaddi loogu sameyn karaa wixii ka dambeeyana loo ilaalin karaa horta dhowr meel dhismayaal badan oo muhiim ah way badbaadeen oo cusbitaal ka mid yahay oo saldhigyadii military biliska ay ka mid yihiin iyo guryihii biliska xabsigii oo dib basiga loo dhisay waxaa loo badbaadin karaa dadka oo ku baraaruga oo fahmaa taariikhda qiimaha ay leedahay iyo wadaniyadda wayna jiraan dhalinyarada anigu macallin baan ka iskuullada iyo jaamacadaha lasaanado dhalinyarada fiican oo wadaniyiina baa kacday marka bal wixii horena khadarba mahale la tiraa soomaalida wixii tegey laakiin in dad dambe loo toog hayo ayaa muhiima marka lasaanado 46 degmo noqonaysaa saasay ku hirgashay kadibna 48 gobol baa la siiyey leeda sool iyo awdal labada gobol baa isku mar la magacaaba awal 8 gobol baa xilligii gumaysiga xorriyaddii 60kii laba waqooyi iyo 6 koonfura 73kii gacanka militariga 8 gobol oo kale sameeyay 48kiina laba gobol buu ku daray marka aad baad u mahadsan tahay ugu dambeyntii waxaanu ka dhigi doonaa barnaamijyada noocan inay soo laalaabato maalinba in qayb aan ku jirno waa qaybo kala duwan la doonayo inaan mar walba qayb dul istaagno bulshada qurba joogta kuwa dalka jooga meel kasta ay joogaan maxaa tala siinaysaa dardaaran siinaysaa Cusmaan Cabdinuur Xaashi aad iyo aad baa mahadsan tahay waxaan tala siinayaa haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo waana lama huraanka ee hagarley wax ugu qabo hees baa Soomaaliyeed kooda heegana biliska qaadi jirtay markii hore markii dambana jaamacadda jaamacadda doodi baa ku luuqeeyay taladaasaan siinayaa qof walba wuxuu qiimo ku leeyahay dhulkiisa war idinkoo gaboobay oo aan caruur hayn oo dhaqaale hayn oo gaboobay oo gurguuranaya intii la soo celin lahaa haddaa xaggaa ku dhimataan xitaa meydkiina dowladda hoose waa laga qaadaa muddo kadib qashinka waa la daadinayaa sanduuqa qof kale dowladda hoose ka kiraysaa yurub iyo maraykan baa ognahay walaata intaan meydkiina la qalan war ka kaalay oo caruuraha soo celiyo diinta iyo dalka anfaca telefonkanaad ku diraysaan colaadda iyo qabyaaladana ka daayo dhaqaalihiina wax khayr laada akhira janno ku tagtaan ku bixiya caruurahana soo celiya dalkii waa nabad meel walba waa xasiloon tahay maalinta maalin ilaahay aakhiro uu ku qabsanayaa marka caruurtaadaad magaalo 10 milyan oo gaaldegan yihiin geysid maarsaaq baad ka waday Soomaaliya iyo Afrika ma waxay cunaan baad u gaalaysiisay caruurtaada lagu oranayaa war ka toobad keen oo ilaahay isu dhiibo danaysto aakhiradiina xusuusto dalkiina wax beerta maalgashada ganacsi ku samaysta khayraadka Soomaaliya ilaahay siiyo wallahi ciduu siiyay ma jirto bini'aadmi Afrikada kale xitaa ma siin badii iyo beertii iyo xabagtii iyo xoolihii iyo kalluunkii iyo wax walba uu isugu daray hadday qurux tahay hadday climate-ka iyo weather-ka kaliya la heli karin cimilada aad 6 bilood shaar iyo iswaal kaliya xidhanaysid ama maawis kaliya la bedelay dharkaba idinku 3 bilood ba mar bay bedelaan oo ogahay afarta xilli marka noloshii raaxada halka cunto organiga ma helaan mana iibsan karaan cunto organiga waxay wadaan waa GM food genetic modified food wararkana raaxa leh halkana idin fiican kuwa wadankana waxaan leenahay war taariikhdaad ku yaacaysan iyo badda waxba idin ma dheere khayraadka dalkiina waa loo tababarinta iskuuladana syllabuskooda iyo curriculumkooda waxa laga dhigay waxa uu ku dayashaa oo lip service afka practical lama barin macaadada farsamooyinka la hirgeliyo dadka hala tababaro ummaddu ha isu timaado qiimihii iyo noloshii iyo wanaagii la soo celiyo qabyaaladda la iska daayo waa uraysaa buu rasuulku qabyaalad qabiilkiisa waa la isku garanayaa محمد علي بعد علي يوسف بعد يوسف ديريان دم بمها أقول تلي أنا إسلام نو صنوان يوطنيات ودتك ود ما يشيان ولا يسافيو كمان لا يسقطوا أدون كنا نقول راح يستو آخر السنة لو كنت دارو aniga iyo bahda nolosha daahsoon iyo Cusmaan Cabdinuur Xaashi waxay idin leenahay dalkeena hooyo waa halkaynu leenahay taariikhdeeda iyo dhaqankeeda iyo afkeedana anaga ayaa mas'uul ka ah ilaalintoodana waxa mas'uul ka ah qof kasta oo ka soo jeeda ama tirsada isirka Soomaali waa nolosha daahsoon oo tagi doonto goobo kala duwan si u soo xusto ay dib ugu soo celiso taariikhdii caanka ahayd ee kala duwanaa ay dalka lahayd u soo noolayso hibada ay lahayd qiimaha ay lahayd tii shakhsi tii guud iyo tandanta guud ee dalkeena waxay noo ballama barnaamijka xiga gobolka xiga aad baa u maastahay qurumaha dunida jira yagoo kala qaaraday haddana qaateen midnimo dabeed qani bay noqdeen dhulkoodana lagu qulqulo
Somalo isku qoysa